الله وبركاته. دعوة الكسر الوضع برنامجيني مهم كالكوكان تجني على سياسة ديار ما حساسية كنت أقول جودها عالم كران ديجانا الصومالي ده طبعا ما تروح نسبيه جدونا أركب ده أرمها صوماليا يهو كي مريسوا حالة وقت حاضر كان وركي ودمية وكالين الصوماليا أيوة حيشيني أركب ده حلي بعنا ده برلمان فدرالك الصوماليا والله بحيها قرب بدبادين تقرأك Soomaaliya ay ku shirayaan Hotel Jazeera waqtigan kaasoo ay doonayaan inay kaga soo horjeedaan mooshin Britole ay xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ku doonayso inay muddo kororsi ku samayso arrimahan imika taagan ayaa ah in waqti xaadirkan xukuumadda uu xilkeedii dhamaaday ay doonayso inay samayso qaab muddo kordhin haddaba wararkii ugu dambeeyay aanu ka helayno ayaa sheegaya in wasiiro xukuumadda ka tirsan Maxamed Xuseen Roble ay xalay toole kulan ballaaran la qaateen madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi kaasoo ay kula qaateen gurigiisa shirkan oo shir albaabada u xidhan yihiin ayaa ay ka wada hadlayeen sidii dalka doorashadiisa iyo ammaanka inay ku yiraahdaan madaxweynaha hore ex president Cali Mahdi inay nagala shaqeey ku yiraahdaan arrimaha doorashada iyo ammaanka haddaba Cali Mahdi oo ah shakhsiga ugu adeeg mucaaradnimada madaxweyne Farmaajo isagu kama tirsanaa golaha midowga musharaxiinta halka ay ka afdhaafeen madaxweyne Farmaajo oo uu tuusan yahay inuu yahay shakhsiga ugu adag ee mucaaradi karaya magaalada Muqdisho sababta uu ugu dirayna wasiiradana ay sidaa tahay ayaa ah in Cali Mahdi ay hore isugu maandaafeen madaxweyne Farmaajo sida Cali Mahdi horeba u sheegay tiraba laba jeer buu madaxtooyada tagay labada jeer uu tagay madaxtooyadana waxa mar waxa uu waayay cid ولا كل ما يعد أحفيسه مدحويناه وقوله مرك الله وسط الشيء إنه سكوا صوب حي مرك الله وحول شيء إن مدحوين فرمانته مرك يقولنا إنه وشيء مدحوينه إنه أشراء كار ومجال ذاك مراء علي مهدي المهدي ناس ده وشيء إنه سكوا صوب عين مرك يردوها كامل شيء إن محمد بن فرمانته مرك كولي كار بقول شرعية إنه سكوا صوب عين سيدنا أنا وكنا نقول مرد منا أنا كل من تبنا أنا يسوعك سيدنا يكون كل مقيني لا يمك طبعا علي مهدي وهبينتي ugu dambeeyay gurigiisa lagu shirayay siyaasadda Soomaaliya inaan moodayay in Cali Mahdi aad ugu soo ururaysan meel weyn oo kaga jiro Cali Mahdi ma sharxna ma la doonayay inuu tartamo sida uu sheegay xilliga maxay toona ma doonayay buu yiri waa hore u sheegay daba madaxweynaha iyo Cali Mahdi halka iska afdhaafeen waa halka ay sartoodu ka qulusan tahay waxaan malaynayaa Farmaajo iyo Cali Mahdi inaanay kala helin wixii yani sidii ay doonayeen inay u dhaqmaan sida awgeedna Cali Mahdi oo malaynayay inuu halka kaga taarabunka kaga adkaanaya oo giilkiisu oo halka weyn u yahay haddaba qodobka ugu weyn ee xiisaha la caawa waxa weeye ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Britole baarlamaanka ajantii kolfadhiga baarlamaanka loogu yeerayo ayaa doonaya inuu sameeyo muddo kordhintan ayaa ku soo aadaysa xilli doorashadii baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay waqtigeedii dhaaftay iyo tii madaxweynahaba labadoodiba ay muddaxileedkii ka dhamaadeen madaxweynaha haddaba ra'iisul wasaare Roble ayaa doonaya inuu sameeyo doorasho single constituency ama doorasho deegaan hal qaabkan doorasho deegaan ee hal waa single constituency ayaa wuxuu sheegayaa waa qaab doorasho halka deegaan doorasho ayaa mid qof iyo cod balse cod bixiyayaashu ka kooban yihiin oo ay yihiin kaliya ilaa dhowr kun oo in la isku keeno hal deegaan doorasho kadibna ay codka ka dhiibanayaan waa close list balaa وقاب ديجان دورشة أو دونيو ودورشة حالية عودة لكن ست بنا يعني يدرسوا فهمان بدونيو وشيء تدا single constituency دورشة ودورشة قاب تتكمل السكوك هنيو يعني بمرلا دورن مال كستقاب مجالات قرا لقى عضينيو أما مال قرا لقى عضينيو close list بلا ودمدا إذا توي كتيرانيو ودمدا على كتيران با لقى سمية دورشة كأنه عاسا مركب دورشة إنه عاسا ودورشدي وهراء مدحوينه محمد عبد الله Farmaajo ballan qaaday ka socon weyday taasi uu doonayo ra'iisul wasaare cusub laba sano muddo kororsi ay ku helaan arintan adaba ayaa u eg arin aan suurtagal ka ahayn waqti xaadirkan oo xaaladdu xasaasi tahay xaaladdan xasaasiga ee waqtigan lagu jiro doorashada ayaan aqbali karayn in yani muddo kordhin inta la sameeyo maadaama ay dadkii stakeholderska siyaasadda oo in la isqanciyo marka hore doorashadaas oo kale wax la qaban karayaa haddii dadku isku raacaan madaxda dowlad goboleedyada musharaxiinta dadka saamilayda siyaasadda oo dhan
si mowqif iyadoo laga wada gaadhay oo go-aan laga wada gaadhay oo laysku raacay. marka taa laysku raaco si waadixa layskugu raaco oo laysku qanciyo ayuunbaa la samayn karaa muddo kordhinta. uma malaynayo doorashadan sida kale doorashadii dadbadayno oo suurtogeli weyday inay tan kale inay suurtogelayso, balse ra-iisul wasaare Roble wuxuu ku andacoonayaa in maadaama laysku afdhaafay doorashadii kale dadbadayd oo arrimaha ay laysku afgaran waayay ay ka taagan yihiin in doorashadan uu qabto. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya iyaguna in midowda musharaxiintu ay kulan la qaadanayaan caawa qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ee labada aqal, kuwaasay doonayeen inay ka hortagaan mooshinka Britole kaasoo la doonaya in qaab degdeg ah loo mariyo. sida wararka ku helayne waxay sheegayaan in la doonayo ajandaha Britole kuma jirto golaha kolfadhiga in laga hadlo muddo kordhin. ajandaha kuma jirto, balse waxa la doonaya in ajandaha lagu soo daro kadibna qaab gacantaaga loo sameeyo. marka gacantaag loo sameeyo ajandaha lagu daro in sidaa lagu hormariyo. qolada nabadii nolol aad bay u taqaanaa oo waxa weeye hore ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa ka yarta 7 minute baa khadka lagaga saaray gacantaag degdega, lagama doodin ajandihiisa, lama keenin miiska, lagama andacon cid wax kasta lama jiro. muddo 7 daqiiqo bay ku mariyeen ra-iisul wasaarihii dhammaan Soomaaliya. marka wuu eg tahay inay dhaafin karaan. sidaa awgeed midowda musharaxiinta iyo baarlamaankii iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee mucaaradka ayaa imika Hotel Jazeera iyaguna shir uga socdaa, kaasi doonayeen inay ka wada hadlaan qaabkii ay uga hortagi lahayn mooshinkan Britole ay wado xukuumadda. marka arrinta ugu weyn uu keeni karaa mooshinkan haddii uu Britole ay hirgasho oo ay dhacdo sida xukuumadda iyo madaxweynuhu ay doonayeen ay u dhacdo, waa mid abuuri karta qalaase, oo mid abuuri karta in saamilada siyaasaddu ay saamili weydo in la kala aamin baxo. haddaba arrintan si laba waxba way iman karaan. waxa weeye arrintaas waxay iman kartaa oo keliya in dadku ay dabadda kusoo heshiiyaan intaan baarlamaanka la keenin. haddii ay hirgasho baarlamaanka la dhaafiyana qolada xukuumadda way ku adkaysanaysaa oo sharci bay ka dhiganaysaa. qolada mucaaradkana ma yeerayso, waxay u arkaysaa qaab midi ku taag, oo waxay u arkaysaa qaab in laysku taagayo midi. sidaa awgeed badbaadadu waxay ku jirtaa in dadka in la kala dhex galo ciddii Soomaaliya ku shaqo leh siyaasadeeda iyo dhammaan dadka caadiga ay ka madax badbaadaan siyaasadda sida bulshada rayidka. beesha caalamku iyadu waxay ku addoonaysaa in aan la samayn wax muddo kororsi ah, oo James Wan iyo safaarada Mareykanka iyo dhammaan EUD waraaqihii ugu dambeeyay ay dirayaan iyagu waxay ku adkaysanayaan inaan wax doorasho ay haddaba ka dhicin, wax muddo kororsi ah aanay ka dhicin baarlamaanka Soomaaliya. arrimaha ugu waaweyn baa waxay sheegayaan 15 bisha Febraayo ee bishan aynu ku jirno madaxweynuhu kulan ugu yeedhay dhammaan maamul goboleedyada madaxda ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo ka dhici doona magaalada Garowe oo si loo soo hirgeliyo heshiiskii Dhuusamareeb lagu gaaray 17 September, kaasoo ay doonayaan in xukuumaddu ay hirgeliso diyaar raayinka u tahay. haddaba waxay isweydiin mudan 4 heshiis oo kale hore u suurtageli waayey sida uu heshiiskan u suurtagelayo oo ay muddaxileedkii oo dhammaaday. heshiiskaas 4 jeer baa oo ka dambeeyay 4 heshiis oo kale, 4tiiba way suurtageli waayeen. waa isweydiintiisu mudaya kaa laftirkiisu. siyaasadda ugu weyn ee imika Soomaaliya ka taagan baa waxay tahay sidii loo heli lahaa xal siyaasi ah oo doorashada iyo waaqaca dhabta imika Soomaaliya ka taagan. waxay u baahan tahay hogaamiye dhama oo si waaqaca oo siyaasiya u fikra. haddaba qofka politicianka dhabta, siyaasiga dhabta, oo qofka deegaanka yaqaana, constitutionka yaqaana, yani qaabka bulshada oo taqaana, siyaasadda deegaanka iyo dadkaaga oo taqaana, waxay kuu sahlaysaa inaad ku jaangoyso aad hab yani maangala oo mustaxiila aad ugu qancin karto dadka. waa qaabka siyaasadda dhabta. qofka siyaasaddu waa labo, qofna waa siyaasi dhaba, qofna waa qof qaab management siyaasadda ugu jira oo qaabka formalka wax loo yani hay'adaha institutionka ku fiican iyo maamulka iyo siyaasaddu way kala duwan yihiin. maamulku qofku wuxuu maamulaa wixii loo dejiyo, hay'ad hadday noqoto, budget hadday noqoto, maamulka yani xafiis degan ama hay'ad ama institution degan sida loo maamulo. laakiin way kala duwan yihiin. qaabka siyaasiga uu ka duwan yahay qaabka maamulka. marka waa halkay ku kala hadhaan maamulayaasha iyo siyaasiyiintu. dad badan waxay isku khaldaan managementiga iyo leadershipka iyo managementigu aad bay u kala fog yihiin, waana meelaha lagu kala garto managerka iyo leaderka. marka imika siyaasadda Soomaaliya waxay u eg tahay qaab manager iyo leader u dhaxaysa. marka wuu eegi doonaa xalka halku ugu dambeeyo. ururkii ugu dambeeyay iyaguna waxay sheegayaan in caawa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo labada guddoonka baarlamaanka iyaguna kulan
ku yeesheen iminka fiila Soomaaliya arrimaha iyo arrimo kala jira arrimaha ugu waaweyn waxa weeye in doorashada xal laga gaadho taasoo dowladda Soomaaliya iyo dhammaan shacabka Soomaaliya ay xalka yani ujeedada ugu weyn ay tahay inay diiradda saaraan in doorashada si waafiya looga heshiiyo si dadku ay dhammaantood uga nafisaan warankan ku taaganaya maxaa jira iyo maxaa dhici doona wararka ugu badan in muddooyinka ugu dambeeyay wararka dhexmaraya ayaa war degdeg ah marka wararkaas oo dhan marka la iska dhaafo doorashada Soomaaliya inay qabsato baan rajaynayna insha Allah khayr baan rajaynayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.